kulankii weynaa ee u dhexeeya xulkeena qaranka Soomaaliya iyo 7 jirada iyo xulka Uganda ayaa ku soo dhamaaday rigooro 7-8 ee guul ku gaartay xulkeena qaranka Soomaaliya iyadoo markii ugu horeysay tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa ee xulkeena qaranka Soomaaliya oo semifinalka gaaray iyadoo hore semifinalka u gaaray 2018 xulkeena qaranka Soomaaliya ayaa semifinalka la ciyaari doona xulka Tanzania oo hore ay u wada ciyaareen 2018 finalka Sakafa iyadoo uu ku guuleystay koobka xilligaas xulka Tanzania iyadoo rajeynayaan xulkeena qaranka Soomaaliya inay ka argudaan xulka Tanzania ay koobka ka qaadaan iyadoo ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ay guul u soo hoyaan Soomaaliya oo dhan isagoo dadaal badan sameeyay goolhayaha xulka qaranka Soomaaliya Cabduqaadir Marshaale iyo xidiga lambarka 22aad ee lagu magacaabo Cabdi Xafiid dhamaan dhalinyarada matalaysay xulkeena qaranka Soomaaliya ayaa dadaal sameeyay ayagoo guul u soo hoyaan qarankooda Soomaaliya geeyay semifinalka tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa hambalyo Soomaaliya meel walba joogto wax alla yahay hambalyo dareenkeena lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay warajeynayna in la keeno koobka laga soo dajiyo magaalada Muqdisho ayadoo noqonaysa markii ugu horeysay ee Soomaaliya ku guuleysato koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa hambalyo